waxaan rabaa dhammaantiin inaan idinkugu bishaareeyo xoogaagii taagtaagga ahaayo maalmahan magaaladu ku jirtay in isbeddel jiro, isbeddel isu soo dhowaasho, isbeddel dhinaca khayrka dadkii amuurahanu ay huseeyeen oo labada dhinac ahaa inaan hadda ka soo baxay shir lagu go'aansaday wixii khaladaadahoo dhacay iyo wixii tabashaahoo jiray in inta la galo la dhammeeyo, is-afgarad ah aan wax hagaajinno, meeshii aan dhabbaha uga leexannay intaan aan jeerinka iyo qabada dhex marayn gadaal inta u laabanno meeshii dhabbuhu ka toosnaayo aan ka nimid aan dib ugu laabanaa timid. shirka ayadoo ergooyinku weli jidka ku soo jiraan inaan bilowno ahaa qorshahayaga si ay u soo dedejiso kuwa maqanin inay yidhaahdaan shirka ka gaara. waxyaabihii magaalada ka dhacdhacayay iyo kala shakigii iyo dhaqdhaqaaqii muujinayay inaan la isku raacsanayn arrinka ayaa saameeyey. ilaahay waxaan ka rajaynaa fariinta caawa la iskula soo laabtay inay ka qaaddo carqaladdii saarnayd, horena loogu socdo shirweynihii lagu heshiiyey galmudug inay ka soo wada qayb gasho oo dhaqankeedu gaar ahaan iyo haweenkeeda iyo dhallinyaradeeda iyo culimmadeedu ay ka soo qayb galaan u dhaqsan noo bilaaban doono haddii aan la yidhaaho. barnaamijka marka dib u heshiisiinta culayskiisu kuma salaysna reer hebela ayaan hore 5 nin naga dilay annaguna 4 aan ka dilnay ninkii ziyaadada ahaa hana la siiyo in meel loo fariisto uma badna. culayskiisu kaas ma aha. degaanan annagu deganaynay naga durugsadeen ma la dagaalnamase waa nooga kicinaysaan ma aha. miisaankiisa wuxuu ku jahaysan yahay in la yidhaahdo galmudugay haddaad isu timaadeen dowlad idinkala dhicisa, dowlad waxaa idinkala jira idiin kala qaada, tuugga idinka qabatoo xabis geysa, cadaalad keenta, nabadgelyo keenta, adeegyada galmudug u baahan tahay bixisa, horumar iyo maamul aad kula tartantaan dowlad goboleedyada idinka tega keenta. taasaa waqti u heli doonta, dhaqaale u heli doonta, 4 sano ay haysato waqtiya waxa idinkala jira inay idinkala celiso. aan aadno dowlad goboleedkaas inaan dhisno. reer galmudugow dowladdii intaas idin qaban lahayd dhista. miisaanka iyo hadafka guud ee shirka dib u heshiisiinta loogu socdaana waa kaas. waxaa iga go'aana mas-uuliyaddayda iyo mas-uuliyadda wasaaraddayda waxyaabo badanoo riix iyo qof jeclaysi iyo mid xaqiisa loo qaado mid kale iyo mid garabka la soo qabto iyo mid hoos loo riixo hadday jiri jireen waqti hore waxaan idinka ballan qaadaa inta ilaahay iga karsiiyo inay noqoto beelahaas iyo ergooyinkooda iyo guddiga doorashada iyo odayaasha soo xulaaya iyo xildhibaanada ay keenayaan inta cadaalad u gaari karto oo annagu aan karno inaan gaarsiino insha allah.